مشرح قول ديغان إنجنير محمد عبد الله عبدي قربوشي وكمد حبنها أتاغن كمد قدان قولها ديغان كدقمد بربراء صلادين عقال وحقرد يقدل يركسوشي دبيش وشرحان يا سفر لحريراه وعيقلين توقب حي ديغان مدى هوسي مادة دقمد بربراء وحنا كمد ها ديغان مدى عمرين قال لو كر إيا لاليس وحنا ديغان مدى سيسي بلانن وآن أكلا حرين أسود ويه مشرح أي وفتق وهو قامل يشعب كديغان مدى سيكو دقان سيدو كلاوحا ومشرح وهالهال وقعان قاضي شعبكii soo dhaweeyay ugu horreynna waxa uu goob fagaar ah kala hadlay shacabka deegaanka Laalays isagoo ugu mahad celiyay soo dhaweynta diiran ay ku qaabileen kuna wacyi galiyay inay qaataan kaarka diiwaangelinta si ay codkooda dastuuriga u dhiibtaan dhalinyarada iyo haweenka iyo odayaasha iyo madaxda dhaqanka ee Geelokor aad iyo aad baan idin salaamaya sida wanaagsan ee aan soo dhaweyseen aad iyo aad baan idin salaamanaa insha Allah sidaas soo dhaweynta ayaanu doonaynaa in kaararkana ku qaataan maalinta la codeynayna ku codeysaan hadii Ilaahay ka dhigo insha Allah Ilaahayna wax khayr baan idin ka rajaynaynaa ifkana wanaag baan idin ka rajaynaynaa aakhirana wanaag baan idin ka rajaynaynaa insha Allah kadibna waxa ay u sii gudbeen deegaanka Laalays oo isagana si ballaaran loogu soo dhaweeyay xaflad ballaaran oo loogu qabtay waftiga uu hogaaminayo Maxamed Cabdilaahi Qarbooshe waxana xafladaasi ugu horeyn ka hadlay suldaanka beeshaasi Suldaan Sayid aw Jaamac Warsame Caaqil Cawil iyo waxgarad kale oo aad u tiro badan iyo sidoo kale haween iyo dhalinyaro waxay dhamaantood sheegeen inay beel ahaan soo xuleen musharax Maxamed Cabdilaahi Qarbooshe codkoodana ay siin doonaan aan idin yar iftiiminaya anigu waxaan ahay suldaan baan ahay suldaanku dadka oo dhan suldaan buu u yahay markay sidaa tahay nin kasta oo reerku ama qabiilku ay soo intiqaabaan soo caleema saaraan soo doortaan muxuu ahaayay soo bandhigaan soo saxeexaan inaan u saxeexo iyo inaan muxuu ahaayay saacido iyo inaan u shaabadeeyo iyo inaan hoosta ka xariiqo xaq baa la igu leeyahay oo dadku xaq buu igu leeyahay aniguna markay sidaa tahay waan ku qasbanahay inaan fuliyo rabitaanka reerka ama dadka inaan fuliyo waayo suldaan ma laha go'aanka hore wuxuu leeyahay guddoonka dambuu leeyahay wixii reerku isla garto